xalane. arrintan hadday sii socdo magaalada Qatar ay galay dadka ku nool si wanaagsan uma soconayaan dee. Waa magaalo kale oo ku dhex taalla caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho, balse waxa ka dhex socda iyo waxa lagu dhex samaynayo dawladuna ma oga bulshada Soomaaliyeedna qaarkood kuma baraarugsana halista halkan ka jirta. Calalla meesha la xamar ku dhex taalo gabdho yar yar oo qaangaar noqon hooyo aaba lahayn kunteenada in lagu xareysto oo meesha caruur looga dhalaxo qalad Soomaha. Waa dhif iyo naadir in laga helo muuqaalo gudaha xalane oo ah bar kulmisa safaaradaha ugu waaweyn ee wadamada caalamka ay ku leeyihiin Soomaaliya, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Balse bartani waxay hooy u tahay safaaradaha wadamada caalamka, waxaana ku dhex yaala hoteelo, makhaayado iyo goobo kale oo qaarkood ay adag tahay in Soomaalidu ay gasho marka laga reebo dad kooban. Xalane si weyn ayaa la isku weydiiyaa waxa laga dhex samaynayo ama gudaheeda lagu dhaxayo, balse waxaa la tilmaamay in xirada xalane ay ku dhex yaalaan kiniisado waaweyn, sidoo kalena kaliyaha iyo beerka loogala baxo carruurta iyo gabdhaha Soomaaliyeed. Waxaa si weyn loogu rikaateeyaa si weynna muuqaalo anshax xumo looga duubaa gabdhaha Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa baraha bulshada aadka caanka uga ah. Dhowr mar ayaa dhalinyaro kala duwan ay arrintaasi ka hadleen, balse waxay la kulmeen hanjabaado uga yimaadeen dhinaca dawladda iyo dhinaca dadka ku lugta leh xirada xalane. Maanta waxaynu dhex geli doonaa xirada xalane inaga oo baaritaano kala duwan oo aan samayno ku ogaanay in dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha halkaasi dhibaato xooggan loogu geysto. Gabadhani waxay ka mid tahay gabdhaha ka soo badbaaday dhagar ay maleegayeen Soomaali iyo ajaanib. Waxay tilmaantay in haddii xirada xalane aan si degdeg dalka looga qaban, dadka Soomaaliyeed aysan si fiican u socon karin, taasi oo micnaheedu ay tahay waxa ka dhex socda inay yihiin wax ka soo horjeeda dhaqankeena iyo diinteena. anaga dumar aan ahay in soo baxdo ni dhaweynaan la dhaw gaariga aaracno ka bacdi meelaan wadankeena Afrika ay tahay inana geysto nagu dhibaateey qalad Sheekh Maxamuud doo wax qabanayo dadkaas dhibaataysan kunteenada ku jiraan waxa uu qabto meelaha kale inuu u doodo qalad waayees dadkiisa iyo dalkiisa baday dhibaataysan yihiin. maxaa dadka kalaas u dooda mideeda kale ciidanimada shalay waxa uu qortay way buuxaan maxaa dhacay hayahe aan gaari laga qaatay ilaahay dhibaato iga soo badbaadiya checkpoint markii liige ninka checkpointiga siinaa taliyaha jooga shay ka bacdi ninkaas waxa laga qabanayaa leh ninka lambarkiisa ma aqoon meesha uu joogana aqoon ma aanan lahayn hayahe wadan kale inta uu doodi lahaa dilkiisa dhibaato burbur yaalay ma waxa uu qabta haye arrintan hadday sii socdo magaalada Qatar ay galay dadka ku nool si wanaagsan uma soconayaan dee. Xirada xalane oo ah meel si weyn aad loogu ilaaliyo ayaa waxaa la tilmaamay in sidoo kalena lagu rikaateeyo muuqaalana looga duubo gabdhaha baraha bulshada sida weyn caan uga ah, kuwaasi oo la sheegay inay lacago ku qaataan marka halkaasi la geynayo, balse marka dambe muuqaalo anshax xumo laga duubo. Sidoo kale halkaasi waxaa la tilmaamay in lagu haysto gabdho kale oo Soomaaliyeed oo aan qaan gaarin, balse aan la ogaan karin halka lagu hayo. Kontineero waaweyn oo ku dhex yaala xirada xalane ayaa la tilmaamay, ama gabadhani ay sheegtay inay gabdhaha Soomaaliyeed la geliyo isla markaana lagu dhibaateeyo kaliyaha iyo beerkana loogala baxo, sidoo kalena muuqaalo looga duubo, taasi oo ku kaliftay in aysan hadlin bulshadana la wadaagin markaasi dhibaatada halkaasi ka jirta. Waa meel inta badan aan loo ogolayn kaamirooyinka, sidoo kalena bulshada caadiga ah aysan geli karin marka laga reebo dad kooban oo markaasi ballamo ku leh halkaasi, kuwaasi oo loo calaamadeynayo ama la geynayo goobo gaar ah oo dadweynuhu isugu yimaadaan. Balse waxaa jira goobo ka baxsan goobahaasi oo si weyn loo ilaaliyo isla markaana hal qof xitaa uusan geli karin, balse dhibaatada ka jirta ee dhalinyarada Soomaaliyeed loogu hayo ay tahay dhibaato aad u weyn. Dawladda Federaalka Soomaaliya tallaabo kama qaadi karto oo halka looga arrimiyo dawladda iyo dadka Soomaaliyeedba. Dhibaatadani waa mid bulshada Soomaaliyeed haysata, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee isugu jira rag iyo dumar.